السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ريال كسر هذا القناة كيغا ما أنت وحن ربها هدي الله ورالك النقطة إن عن كهضلو فرصة أقوى نفسن أور لو يلان كرو إيو قابك وسميسني هاي المجالين كنا أولا وحن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى كتبنا وحن أمهد علينا لما أمد الصوماليات كحيران قناة كيغا isla markaasna hadallada wanaagsan ee dhiirigelinta iyo maxaan ku dhahayo ducada isugu jirta ee maaragtay ii soo qora waxaan rabaa inaan maadaama aan iri habka ugu wanaagsan ee uu lagu yeelan karo ama fursadda ugu wanaagsan ee uu lagu yeelan karo inaan ka hadlo waxaan rabaa Allah subhanahu wa ta'ala soo quraankiisa ku sheegayba in aan micnihii aan ka imaanay oo aan ka samaysanay candhuuf la iska tuuray oo la iska nacay taasoo candhuufyadaasoo isku milmeen ama mani ka timaaday maxaan ku dhahayo lab iyo dhadig ay falgaleen oo ay noqdeen markaas kadibna lab iyo dhadig ayagii laftigoodii ilaahay wuxuu yiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلهي وحكرته يري أيحسب الإنسان أن يدرك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مركز إلهي معي وحكى هذه موحي أمالينيان إن بلاش لوغة تجدونه وعن حساب دونين أيو يري وحاجرته أما مرحلة وحاجرته المعنيه وحيسن أهين أيسن جرين dadka sidaan isu walwaalayo ayuu ka hadlayaa oo maaragtay dadradii kibirka iyo maaragtay dhulka sidii maraxnimada ugu soconayaan wuxuu kaloo ilaahay uu noo sheegay in uu maaragtay uu dhibic naga abuuray xadhuuf naga abuuray kadib xinjir dhiiga ee noqotay kadib maxaan ku dhahay cajiira aan noqonay ilaahay inuu naga yeelay lab iyo dhadig kuwaasoo ka yimid labo maxaan ku dhahayo wasakh oo isu tagtay hadalkii kuma sii dheeraynayo markii khubarada cilmi baarista ay sameeyeen waxay ogaadeen fursadda ugu wanaagsan ee uurka lagu yeelan karo inay tahay gabadha caadi dhiiggeeda u hesha sida joogtada u hesha bil kasta mar wuxuu ukunteedu sidaad ogtihiinba gabdhuhu waxay leeyihiin dumarka ama dhadigu waxay leeyihiin ukumo ragguna waxay leeyihiin isbaarme iyo mani macnaha manidaasoo isbaarmana loo yaqaan gabadhu markii ilaahay uu u dooray inay gabar noqoto ayaa ilaahay wuxuu ugu talagalay oo siiyey 400 oo kun oo ukun si aad iila socotaan waxaan rabaa inaan idin xariiqo si aad iila fahantiin gabadha sideedaba dumarku ilmo galeenkoodu wuxuu u samaysan yahay sidii gacantaydaas oo la duubay gumaarka ayuu ku hoos jiraa gumaarka hoostiisa ayuu ku jiraa wuxuu kor saaran yahay kaadi haysteenna baroonka maxaan dhahayo maxaan dhahaa boofinka kaadida noogu jirto korkeeda ayuu saaran yahay wuxuu u dhaxeeyaa xiidmihii saxarada meeshii macnihii ay kasoo baxayeen dabadii iyo kaadi haystii ayuu laba dhexdooda uu ku jiraa kor ayuu ka saaran yahay kaadi haysta sidaa darteed markii ilmo galaan wuu fuuraa oo maaragtay wuu buufsamaa hadba ilmahaas inta ay korayaan markii ilmuhu dhashaanna sayskiisii ayuu kusoo noqdaa iyo makaankiisii hadalkayaan idinku daarinin waa idiin sawiraya ilmo galeenkii
gabadha marka saa idin sheegay 400 oo kun oo ukun ayay leedahay ukumahaasna ilaahay baa garanayo siduu uu ugu kala qaybiyay labada meel mid inay ku badan tahay in la kala qaybiyo isku maaragtay isku miisaan laga dhigay oo isku tira laga dhigay ilaahay baa naga garanayo marka 28 maalmoodba hal mar ayay ukuntu soo go'daa 28 maalin makaankii ay ku jirtay maaragtay uxamaha siday ee ukuntaas siday way ka soo baxaysaa way ka soo go'aysaa kabacdi waxaa soo qaadaya tuubadii maaragtay ilmaha ukunta tuubadii ukunta soo hagi lahayd ayaa soo kaxaynaya tuubadaas waxay leedahay faro isa ugu soo dhuuqdo ay ku soo dhuuqee ayada soo kaxaynayso meelahan oo dhan ayaa waa la soo darbaynayaa ukuntaas okay marka gabadhu hadii ay gabadhaan nin qabin ama gabadhaan macnaheedu lagu guuleysan inay maaragtay ukuntaas iyo isbaarmadii ay ilmo sameeyaan hadhowta waxay iska noqotaa dhiigga caadada ah badanaa waxaa laga yaabaa inay isweydiisin dhiigga caadada xaguu ka yimaadaa dhiigga caadada wuxuu ka yimaadaa ukuntii ilmuhu ka samaysmi lahaa ayaa ilmo samaynaynin macnaha ayaan ilmo noqonin sidaa darteed dhiigga caadada ayuu noqonayaa okay marka ukuntaani markay soo fuqday 28 marmarka qaarkood way ka soo gaaban tahay marmarka qaarkoodna way ka dheer tahay qasab maaha 28 laakiin qiyaastii meelahaas waxaa soo qaadanaysa tuubadii marka dambaysa meel bay keenaysaa marka ay ninkii iyo maaragtay isku tagaan halkan waa farjigii ilma galeenkii afkiisiina waa kanaa markii uu lulumadii isbaarmihii ninka raggu ayagu sida dumarka oo kaleeto macnihii uma maaragtay maxaan ku dhahayo looma xadidin oo looma cayimin haddaan anaga dumar nahay maadaama aan 400 kun oo ukun haysano bil kasta maadaama ay mar soo go'do ukumihii way soo yaraanayaan kuwaalitigoodiina wuu soo xumaanayaa gabadha xilliga ukunteeda ugu fiican tahay ugu quality fiican tahay waa inta u dhaxaysa 18 waa sida noo sheegay 18 ilaa iyo 25 25 28 maalinkii gabadhu gaarto 30 ukunteedii iyo fursadii ay uur ku yeelan lahayd wuu maaragtay wuu yaraanayaa 35 sano markay gabadhu gaarto macnihii haddana si saa'ida ayuu usii xumaanayaa kuwaalatigii okay markay dumarku gaaraan 30 iyo markay dumarku gaaraan 45 ilaa iyo 55 waa waqtiga dhiigoodu uu maaragtay ka tagi lahaa xilliyadaas oo kaleeto dhiigeedu maaragtay waa ogtihiin ba macnihii xaydka guura halka raggu ay maaragtay iyagoo waayeela xataa ay ilmo dhali karaan balse laftigoodu kuwaalatiga maaragtay sidii markay dhalinyarada ahaayeen uma ahan teeda kaleeto kuwaalatiga ukunta iyo isbaarmahaba waxaa xumeeya waxa weeye maandooriyaasha aad bay u xumeeyaan teeda kaleeto waxaa kaloo xumeeya cayilka iyo caatada tirada badan ee nafaqa la'aanta ah ayaguna wuu xumeeya gabadha cayilan maaragtay waa in ay maaragtay hilibka iska soo dhinto hadday doonayso inay u yeelato 35 wixii ka horeeyana jaanis ay haysataa 30 haddii ay ka hooseysana ka sii fiican laakiin dad badan ayaa ku dhala hooyooyinkeena dhan 40 iyo 50 ayay ku dhali jireen laakiin mar walba waxaa laga hadlayaa kuwaalatigii iyo jaaniskii tirada badnaa ay marka yareed ay haysatay haddana haysato okay ninku marka shahwadiisu markay uu raaxaysanayo ayay macnihii isbaarmadiisu samaysmataa sida dumarka oo kaleeto ma ahan halkii mar oo maaragtay uu biyaha sii daayo wuxuu sii daynayaa 500 milyan oo maxaa yiraahdaayo isbaarme waa half billion hadaan qaldanayn ayuu sii daynayaa balse kulligood macnihii wax ma sameynayaan dhowr boqol ayaa aadayo ukuntii ukunta dhowrka boqol ayagu ilmo ma sameeyaan hal ka mid ah ayaa iyo ukuntii oo isdhex galay ayaa ilmuhu ku samaysmaan halkaasna ukunta ayaa dooranaysa kii markaas dadku qaar waxa laga yaabaa inay isdhahaan
kan ugu orodka badan iyo kan ugu maaragtay ilaa way dabaalanayaan moogta aad bay u yaacaan laakiin saas kuma xirna dhowrka boqol ukuntii ayay ku wada dhigayaan markay ku wada dhigaan hal ayay kala baxaysaa halkaas ayaa wuxuu gelayaa ukunta dhexdeeda ayuu gelayaa sayntii ayaa go'aysa waad aragtay inay saa u ordaan saynta way go'aysaa madaxa ayaa dhex gelaya halkaas sidaa darteed mararka qaarkood way guul daraystaan iyadii oo maaragtay isdhex galeen ayay waxay noqdaan maxaa dhahaa dilan mararka qaarkood maxaa la yidhahdaayo gabadha iyadoon dareemaynin ayay u malaynaysaa dhiiggii caadada ahaa intay samaysmeen ayay wax yar dhiiggii caadada kabacdigeed ee iska soo maaragtay daadaneen iyadoo gabadhii u malaynaysa inay maaragtay dhiiggeeda caadada ahayd ay tahay balse waxaa laga yaabaa ilmo markaas dilana inuu yahay anyway markii lagu guuleystay ee xabadii ay ka qaadatay meesha wixii kalena waa iska tegayaan isla meeshii aan idiin sheegayay ayaa soo kaxaynaysa ilmagaleenka darbigiisu wuxuu noqonayaa wuu maaragtay ballaciisa ayaa maaragtay kordhaysa markay ilmo noqonayaan si isugu diyaariyaan ilmahaasi inuu maaragtay uu soo dhaweeyo kabacdigeed markii ay ukunta bacransanto oo ay noqoto uurjiif ilmo ay noqdaan derbiga meel ka mid ah ayay ku dhegayaan ukunta sideedaba halkaas ma taagtaagna meelahan ma taagna markay ilmaha samaysmaan waxay samaysmayaan derbi ayay ku dhegayaan maxaa yeelay ebida waxaa la rabaa inay derbiga ilmagaleenka ku dhegto ebidaas oo ah tii siinaysay cunuga nafaqo iyo oksijiin ay kasoo qaaday hooyadii weliba iyadoo dhiiggii ay kasoo qaadayso dhiigga maaragta hooyada ayay oksijiintii ay kasoo qaadataa waa in derbigaas ay ku dhegto sideedaba ebidaasi markii ay oksijiin iyo cunuga siinayso waxay usii dhex marinaysaa maxaa la yidhaahdaayo xuduntaas xataa howlo badan ayay qabataa iyadoo qashinkii xataa ay ka nadiifinayso cunugii maaragtay wixii qashina way ka tuuraysaa wixii maaragtay nafaqadii oksijiintiina cunugii ayay siinaysaa gabadha sideedaba waxay ilmaha markii lagu leeyahay yacni oo waqtigiisii dhammaystay waxay sidaa ilaa 40 toddobaad qaar ayaa ka hor dhasha ilmaha qaar ayaa dhicis ku dhasha oo dhiciskana waxaa la xisaabiyaa cunuga aan wiiga toddobaadka 37 wax yar xoogaa macnihii wiiga ka horeeya waa dhicis cunugii wiiga 37 ka dambeeya waa cunug dhamays ah haddii 38 iyo 39 iyo 40kii waa cunug macnihii waqtigiisii dhamaystay haddii 37 uu ka horeeyo markaas oo yacni ilaa 30 iyo 31 32 33 waxaa lagu koriyaa ilmahaas dhalo ayaa lagu sii korinayaa looga dhigayo sidii inuu caloosha hooyo ku jiray oo kale waryaan idinku daarinin saa idiin sheegay gabadhu markay dhiiggeeda 14 maalmood ka harsan tahay badanaana ukunta cad ah qaybteeda cad ee isjiijiidaysa ayaa hoosteeda ka yimaada badanaa markaa istijoonaysiin waxaa laga yaabaa inaad waxaas isku aragteen wax saa isu jijiidaya markaas ayaad waxaad ukuntaada ay diyaar u tahay bacrimin falgal inay la samayso shahwadii kabacdigeed markii ilmahaasu ay maaragtay gaaraan 40 wiiga 40aad 39 41 inta u dhaxaysa 42 qaab baa gaara cunugii madaxiisii markii wiiga 30 xoogaa uu gaaro madaxii ayuu soo dejinayaa cunuga madaxiisii hoos ayuu usoo degayaa markii wiiga 7 bilood iyo markuu gaaraba cunuga madaxiisa wuu soo degaa kabacdigeed markaad leedin dhahayo minka ilmagaleenka afkiisa ayaa 10 sentimitir idin furmay macnaheedu waxa waaye markastoo nabar yimaado markasta oo nabarka kuu yimaado waxa weeye cunuga madaxiisii ayaa hoos usoo degayo markastoo cunuga madaxiisii hoos usoo dego wuxuu maaragtay soo riixayaa ilmagaleenka afkiisii sidaa darteed ayuu ilmagaleenkii u furmayaa ilaa 10 sentimitir marka gabadhii rabto markaas inay maaragtay uur yeelato ha badiso ijtimaaca ayadii ninkeeda markii labada caado dhexdooda ay tahay tii kaleeta 14 maalmood ka dhiman tan kaleetana 12 maalmood ay dhaaftay laba dhiig dhexdooda ama 14 maalmood
ka hor warqad ha kusii qorato calendar ha kusii qorato 14 maalmood markay kaaga dhiman tahay tii kaleeto waxaad badisaa 6 maalmood oo ugu horeysa markaas waxaad badisaa is aragiina ama habeen walba ama maalin walba is arka adiyo odaygaaga ama waxaad samaysaa habeen dhaaf ama maalin dhaaf isu arka markaas sida idinka aad rabtiin bacrimintan waqtigeeda yani ay uu soo go'ayo maxaa la dhahayo ukuntana yani waqti gooniya oo la dhihi karo waqtigaas ayuu maaragtay ay falgalka iyo bacriminta samaysmi karaana ma jirto laakiin ayaamahaas aad isku aragtay waxaas jiijiidmaya ukunta qaybteeda cad oo kaleeto saa u jiijiidmaya aad isku aragtid oo kaleeto ama 14 maalmood ka hor xaydkaagii markuu ka dhiman yahay waxaad samaysaan joogto u sameeya is aragiina joogto u sameeya stresska badanna iska ilaaliya stresska rag iyo dumarkaba uma fiicna especially gabadha maxaa uma fiicna stresska badan teeda kaleeto uurka gabadhu markay uur rabto inay yeelato mar walba waxay ka walwalaysaa ay macnihii ay mar walba ay stress isku guridisaa si uur u yeelato taasna kuma fiicna stresska badan dhiigga ayuu macnihii kala fogeeyaa dhiigga ayuu kaa kaxayn karaa mar haddii dhiiggaagu joogto ahayn oo uu khaldamana si sahal uur laguma yeesho uurkaagana wuu sii fogaanayaa sidaa darteed gabadha joogtada u hesha dhiiggeeda 28 maalmoodba mar hesha ama waxoogaa ka horeeya ama ka dambeeya waxba dhima malahan 2 toddobaad ka hor badi 6 maalmood oo ugu horeysa 2 toddobaad oo dambe 6 maalmood ugu horeysa is aragiina badiya teeda kale waxaan rabaa inaan idin sheego gabdhaha Soomaaliyeed ee mar walba la dhaho in vitaminiskooda aad u yar yahay ama maaragtay maxaa la yiraahdaa nafaqo ku filan ma haystaan kan joogtaysta full sira ayaa la dhahaa farmashiyaha ayaa lagu iibiyaa uma baahnid in dhakhtar uu kuu soo qoro caadi ayaad maaragtay u iibsan kartaa raguna way leeyihiin ayagana ragana ayagoo nimankana way u baahan yihiin ayaguna inay iibsadaan ummadeena Soomaaliyeed aad ayaa maaragtay loo hadal hayaa in maaragtay kalluunkeena iyo qudradeena ay aad u yar tahay cunisteeda fruits uu nagu yar yahay banaanka ma u baxno ma helno dhiig maxaa la yiraahdaa qorax nagu filan waxaan idin kula talinayaa qorax waa u baahan tihiin fruits badanna waa u baahan tihiin waxaad kaloo u baahan tihiin inaan maaragtay kalluunka aan cunno waxaan kaloo u baahannahay geedkan inaan joogtaysano maxaa la yiraahdaa folic acid ayaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa English ahaan gabadha rabta marka inay uur yeelato waa inay geedkan aad maaragtay ay u isticmaasho waa inaad soo bilowdid bilo ka hor soo bilow 3 bilood ka hor soo sii bilow mar walba sii qaado maalin kasta ayaad cunaysaa wax macni waa loogu talagalay gabadha rabta inay uur yeelato inay isticmaasho sideeda ahaana annaga ama aan u raadin ama yeena raadin waa inaan isticmaalno ayadana waa muhiim ayadana raggu sideeda ahaana waa in maaragtay ay ayaga laftigooda waxyaabo manidooda xumeynaya ayaa jira sida maaragtay kulaylka badan computer inay dhabta saartaan oo kaleeto kulayl inay hoosta ay maaragtay ka soo gaarto aad ayuu quality-ga u xumeeyaa mana u fiicna waxaa laga rabaa qofka inuu maaragtay meel qandac oo qabow ah inuu macnihii alaabtiisa ay u taalo sidaan idin sheegay dad baa waxay aaminsan yihiin ayagana in gabadhu markii ay xaajigeeda is arkaan inaysan dhaqso aysan musqusha u gelin iska soo dhaqin ay sariirta ku nagaato ilaa iyo 30 daqiiqo ama dad baa qaar waxay leeyihiin barkin dabada gasho oo maaragtay dabadii baridii kor waa inuu u taagno si wixii ay maaragtay gudaha u galaan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo horta wax dhiba ma lahan hadaa samaysid waa wax fiican laakiin ma jiro wax cadaynaya inay arrintaasi sax tahay maxaa yeelay isbaarmada sideedaba ayadaaba iska oroda oo orod badan uma baahna daba in cirka loo taagay iyo in kale hadaa samaysidna wax haba yaraatay dhibana ma lahan marka sidaa darteed isbaarmaha dhowr maalmood maxaa u leeyahay adigu saacado ayay maaragtay ay ilmagaleenka ku sugi kartaa ukuntii iyadu halkaasi u joogi kartaa hadday rabto haddii ay weli tahay oo kale way sugi kartaa markaas ayay falgal la samayn kartaa marka stresska badan iska ilaaliya ka fakarka uurka iyo ilmaha iska ilaaliya wax kale isku madadaaliya ilaahay hadduu ilmo idin siinaayana waa helaysin insha allahu tacaala
walwalka iyo stresska ayaan aad idin kula talinayaa maxaa yeelay idin ma fiicna waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dadka qaar baa waxay leeyihiin qaababka kala duwan ee la isku arka xataa door ayay ka ciyaartaa sida qofka inuu gacmihii iyo lugihii intuu dhulka dhigto maaragtay maxaa la dhahaa dog style I don't know maadaama ilmagaleenka afkiisu uu si toos ah uu kor ugu jeedsamayo maaragtay way u sahlaysaa in markaas uur la yeesho anyway iska tijaabiya waxaasoo dhan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu